السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان idin rajaynaya iyo maalin qurux badan ama xilli wacan oo qurux badan xilli kasta aad ku jirtaanba. waxaa jira dawooyinka ay raggeenu u qaataan awoodda raganimada ama inay biyaha dib ugu celiyaan xilliga kulanka sariirta ay ku jiraan ayaa xilliyadan dambe aad u soo badanaya. haddaba waxaa jira dawooyinkaasi laba qaybood bay ku yimaadaan. kuwa waa kuwa herbal ah, kuwana waa kuwa la diyaariyey oo inta badan prescription bay ku soo baxaan ama waxay ku soo baxaan prescription in dhakhtar la'aan dawadaa la soo iibsado farmasiyada laga soo iibsado ama dhakhtar inuu qoro. haddaba arrinta aadka u halista badan, ninbaa waxa uu nala wadaagay dawada shaashadda inoo saaran ee sawirkeeda uu shaashadda inoo saaran yahay. dawadaasi waa dawo halisa, waa dawo khatara oo runtii waxa uu isticmaalayay in ka badan 2 sano. dawadaasi sida caadiga waa dawooyinka loo qoro ragga uu ku yaraaday kacsiga ama awoodooda galmada ay samaynayaan ay liidato. ragga inta badan xaasaska badan leh ama dumarka badan leh iyo ragga xanuunadaasi ay ku dhaceen ee dhinaca awoodda raganimadu ay liidato. haddaba waxyaabaha la yaabkaa waxaa ka mid a ninkaasi wuxuu igu yidhi 2 sano iyo badh baan dawadan qaadanayay. waxaan isku arkay buu yidhi in araggaygi uu sii daciifayo ama uu markaas aanan si fiican wax u arkaynin. dawadaasi arrintaa mayay saamaysaa mise xanuun kale ayaa dhinaca indhaha igaga soo biiray oo inaan dhakhtar u tago indhahaygaan soo baadho ayay noqonaysaa. haddaba dawadii markii aynu baadhnay ee aynu ogaanay dawadani waxa ay leedahay side effect halis badan oo qofka isticmaala long term ama waqti aad u dheer isticmaala ay ku sababi karto si fudud indhaha inay uga rido. dawadani waxay samaysaa wax loo yaqaano optic nerve damage oo ah nudayaasha ama dareensidayaasha aragga indhaha ayay dhaawacdaa oo ay burburisaa. haddaba waxaynu u sheegaynaa wadaadkan waxa kugu sababay araggaagii inuu daciifo iyo indhuhu in isbeddel uu ku yimaadaba waa dawadan. sida ugu dhaqsaha badan u jooji, dhakhtar indheedna la xidhiidh. dawooyinkan inta badan qarsoon ee qofka khatarihiisu ay ku badan yihiin ee aanu laakiin ogaanaynin ee faa'iidada waxa uu arkayo ama gogosha uun ay u muuqato, fadlan marka koowaad dhakhtar kala tasho, marka labaadna isku day dawadan inaad akhrido dhibaatada ka iman kartaa. intaas ayaanu ku soo ururinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.